agaasimaha cisbitaalka magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa si rasmi ah u shaaciyay isla markaasna bulshadiisa ugu bushaareeyay fursad caafimaad oo bilaash ah. fursadaasi caafimaad ayaa noqonaysa mid indhaha loogu fiiqayo ama indhaha loogu jeexayo sidoo kalena loogu daweynayo dadka aragga wax ka qaba ee ku nool magaalada Burco iyo guud ahaanba gobolka Togdheer. Dr. Cabdi Suudi Ibrahim waxa uu bulshada gobolka Togdheer ugu bushaareeyay in fursadaasi caafimaad ay bixinayso wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer isla markaasna uu si free ku bixinayo cisbitaalka guud ee magaalada Burco laga faa'iideysan doono 4 maalmood oo ay socon doonto qoritaanka dadka ka faa'iideysanaya sidoo kalena 4 maalmood oo kale la daweyn doono dadkaasi aragga wax ka qaba. maanta ay taariikhdu tahay bishii 6 Abriil waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha gobolka Togdheer iyo magaalada Burco iyo shacabka kale reer Soomaaliland ee soo gaari karayba in cisbitaalka Burco laga bilaabi doono 29 bisha haddii aan la yiraahdo olole caafimaad kaasoo lagu fiiqi doono bulshada aragga haddii aan la yiraahdo kaasoo socon doona muddo 4 cisho marka shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer magaalada Burco waxaan ku wacyigelinaynaa in adeegaas soo doontaan adeegana waxay ku qaban doontaa wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa bilaash waa adeeg dadka lagu qaban doono bilaash waxaana weeye waa indha fiiqis oo dadkii aan waxba arkayn iyo kuwa indhaha ka xanuunsanayaba waa lagu daweynayaa haddii la yiraahdo dadweynaha waxaan ogeysiinaynaa in registrationkii ama dadka la sii qori doono oo ay bilaabmi doontaa la yiraahdo qoritaanka dadkaasuna maalinta bariya ee isniinta haddii la yiraahdo 25 bisha muddada 4 cisho ka horeysa 29 bishana waxa socod doonta registrationkii wixii inta ka dambeeyna waxa bilaabmi doona shaqadii taas oo ah in dadka la daweeyo indhahana waxay qaliin noqdana loo fiiqo marka wixii inta ka dambeeyna ma jiri doonto ciidan la registraynaya marka bulshada waxaan la socodsiin doonaa inay ka faa'iideystaan muddada 4 cisho ee registrationku socdo oo ay yimaadaan oo aanay ka habsaamin waayo 4 cisho kaliya hadhow markuu qaliinka iyo daaweyntu socoto cid la qorayaana ma jirto cid dambe oo wax loo qabanay ma jirto marka 4 cisho la siinaya in la registrayo marka waxaan aad ugu boorinaa degmada dadka ku nool magaalada Burco iyo agaarkeeda iyo cid kasta oo reer Soomaaliland oo soo gaari kartaba inay yimaadaan adeegaasna waxa lagu qabanaya haddii la yiraahdo si bilaasho oo wasaaradda caafimaadka ku qaban doonta haddii la yiraahdo waa markii ugu horeysay ee fursadan caafimaad ee bilaashka oo cisbitaalka guud ee magaalada Burco uu ka fuliyo agaasimahan cusub Mustafa Usmaan magaalo warbaahinta qaranka Soomaaliland Burco.